wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta waxa uu dib u furay garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco kaasi oo ay muddo haatan albaabada u laabnaayeen isla markaasna aanay garoonka diyaaradaha ee magaalada Burco diyaarada ka haadin muddo haatan laga joogo 3 sano wasiirka wasaaradda duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi waxa uu sidoo kale ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin horumarka ay wasaaraddiisu ku talaabsatay muddadii koobneed oo xilka hayay iyo waliba sidoo kale waxqabadka xukuumadda uu ka tirsan yahay waxaana wasiirka duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale ku nuuxnuuxsaday xukuumadii wasiirka ayaa waxa uu sidoo kale eedeymo ka dabageeyay xukuumadii hore ee madaxweyne Daahir Riyaale Kayn isagoo sheegay in xukuumadda madaxweyne Axmed Silaaya dhaxashay khasnado maran oo hawlaya iyo waliba deymo lagu leeyahay dawladda wasiirka duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu muddadii uu xilka hayay ay wasaaraddiisu ku guuleysatay inay furto garoomo badan oo ay ka mid yihiin garoonka Burco iyo waliba garoonka Boorame oo furay 19 bishan wasiirka duulista iyo hawada waxa uu sheegay inay dib u habeyn ku sameyn doonaan garoomada Hargeysa iyo Berbera waxaana uu sheegay inay ballanqaadkii boqolka xisay oo xukuumadda uu ka tirsan yahay ay tahay mid lagu guuleysan doono hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah bilmillaahi kariim waxaana uu sheegay wasiirka duulista iyo hawada jamhuuriyadda Soomaaliland isla markaasna waxa uu sheegay inay sidoo kale xukuumaddu dhaxashay shaqaalihii oo wax qaba waa ku dhacay geesinimo ballankii aan ummadda u qaadnay baan fulin waxaanu ku bedelaynaa way jiraysaa guddiga nabadgelyadu waxa gudoomiye u noqonaya bara saabka xubnuhu waa sidoodii laakiin iyagu xukumi maayaan garsoorka geenayaan cid ay doonaan inay xukumaan haddii cidi khalkhal geliso bulshada reer Togdheer booliisku cid kastoo la eedeeyo wuxuu xaq u leeyahay inuu qabto garsoor madax bannaan baa la geenaya immediately waa la xukumaya xil ka baaqanaya iyo cid ku kibri karta ammaanka iyo nabadgelyada ma jiri doonaan waxa aanu qabanay hantidii ummadda ee kala laalaaday ee midba meel lagu qaadayay baanu midaynay cashuurtii ummaddaanu midaynay dhaqaali baanu isu keen one pocket baanu ku xiraynay wasaaraddan anigu madaxda ka ahay lacag bay qaadi jirtay waxay maanta ku jirtaa lacagtii ay qaadi jirtay wasaaradda maaliyadda qaada ku wareejiyay dekada berberi lacag bay qaadi jirtay waxna waa la qaybiyay waxna servicekeeda loo reebay waxna hantii dawladda dhaxal laga mid dhacay cashuurta xoolaha noo laga qaado har karansiga iyo kuwa shidaalada dakhliga dawladda kuma soo xiran jiray maanta wasaaradda maaliyadda wada xorad hanti guriga madaxweynaha gaar loogu geeyo iyadoo shandad la sido ama gudoodi loogu qariyo ma jirto walaalayaal waxa weeye ballankan ummadda u qaadnay ayaanu rumaynay miyaanay wax qabad ahayn miyaanay ballan oofin ahayn waxaanu samaynay si waxaanu dhinnay dhaqaalaha cashuurta ariga laga qaadaan wiigan dhinnay si sayladeenna iyo malkadeenna ula tartami karto malkooyinka kale malkadeenna qiimaha badan ee berberi saay u noqon mid looga guuro oo challengeska ariga dhoofaya ay u xijin karta baanu xoolii lacagtii dhinnay tii cashuurtii dawladdana qayb baanu dhignay tii shirkadda Al-Jaabiri qaadi jirtayna qayb baanu dhignay waxay ka mid tahay waxqabadka saddexda bilood aan doonayn inaan ku talawsano waxaanu walaalayaal qabanay waxaanu nimi qaran shaqaalihiisii dulmanaa ee 54 ka u sareeya bunt A iyo B iyo C waxay qaataan $54 $46 iyo wax lamida waxa aad arkaysaan ayaa iyaga oo dulman askariga ciidanka qaranka ee nabadgelyada ummadan ilaaliya iyo ka booliiska gaaf wareegaya ayaa waxa qaata qarankan oo dhan bay ku tahay ceeb ay ku tahay iyo xaq dhowr xumo ay ku tahay in dadku xilka u diranay ilaa kii dhaqaalaha qaadaya 10ka ilaa kii qaadaya malaayiinka dollar baa leeyahay intaasaad leedahay taa macnaheedu waxa weeye wuxuu doono inuu sameyn karo oo xadi karo weeye waa fasax rasmi ah waxaanu samaynay maanu kordhin karayn inaanu mushaharooyin dadka u kordhino meel maran baan u nimi xaslad maran baan u nimi oo lagu leeyahay malaayiin lagu leeyahay waxa aanu samaynay afartii bilooda ka maqnaa mushaharooyinkooda silcale ayaanu soo celino maanta aanu siinay u malayn maayo bisha maanta September baanu challenge gareynaa lacag kaleena lagu maray walaalayaal waa wax qabad weey waa wax qabad waanu dareensanahay in marfashiyada magaalada Hargeysa aadka looga qayilo aadna looga dacaadeeyo oo bakhaylnimo iyo haddii ay bidmay jeebkaana gacanta gelin aad wax nalooga hadalayo waan dareensanahay waxaan leeyahay dano dad gaari ay dheryahoodu ay u karsan yihiin xukuumadda iyada cusub haddaan idin sheegayaa waxaanu ka door bidaynaa inaanu wax hal mashruuc oo dadku wada leeyahay oo ay wada dugsato inaanu qabanno
ayaanu ka door bidaynaa in gaara aanu waqaqayno haddayna dacaayadaynayaan iyo haddayna la coloobayaan waxa walaalayaal waxyaalaha runtii waxaa ka mid ah arrimaha iyaguna qabsoomi doona muddadan mashaariic waaweyn oo lagu guuldaraysa in la dhammaystiro waxaa ka mid ah bridgekii intaasoo sanado socda Hargeysa haddaa idinku kan dhisateen bridgekii Hargeysa dhammaan kari waa sidaa darteed xukuumaddan cusub waxa ay ka go'an inay dhammaystirto bridgeka waqti dhow waxa aanu ku dhammaystiri lahay aanu ku talagalay 100 maalmood inaanu ku dhammaystirro waana rajaynaynaa challenge-keedu waanu wadnaa laakiin waxa obstacle nagu yimi xaggii daad soconaya oo baalihii la aasi lahaa dhibaato ku haya marka waa ku rajo weynahay haddii aan daadkaasi aanay soo xoogaysan waa dhammaystiraynaa waxaa ka mid ah waddada dila iyo Boorama isku xidha 4 kilomitir bay xukuumaddu samaynaysaa muwaadiniinta reer Boorama anigoo ku ammaanaya tacabka gashankiisa galeeno iyaguna inta leeg bay soo sameeyeen xagga annaguna xaggaan ka bilaabayna dila waxa ka mid ah anigu wasaarad baan imika joogaa madaarkan Burco way naga maanta furayna kii Boorama 19 bishaan furay 8 sano lagama soo digin ka Boorama 8 sano lagama soo digin madaarka Berbera waxaanu ka dhisaynaa terminaal weyn oo dadku ka dhoofo terminaalka laga dhoofiyo ka laga soo dega waa isku mid maanta wax qabadka xukuumadda waxa ka mid ah 100 cisho terminaal cusub terminaal qiimo badan oo weyn oo laga dhoofaanu ka dhisaynaa kii horena waxaanu ka wada dhigaynaa ka laga soo dego waxa ka mid ah Hargeysa oo kale terminaalkeeda weyna laga dhoofo iyadana dib u habayn iyo ballaarin baanu ku sameeynaa wiigan soo socda ayaa labada mashruuc ay dhamaanayaan waxyaalaha iyo waxyaalo wasaarad walibana wax qabad bay sameynaysaa taan anigu kooyga ka waramaya lamida marka waxa weeyaan duruufo badan bay nagu xeeran roomana maalin laguma dhisin waxa muhiimku yahay in yool iyo abaarina ay jirto go'aan iyo ku dhacna u jiro ayaa muhiim ah intaas uun baa ugu muhiimsan walaalayaal waada Burco waxay isticmaashaa lacag aad u baabaday oo ceeb ku ah qarankan qaran weyn uu leeyahay astaan midaysan lacagtu waa astaamaha midaysan ee qaran wada leeyahay xisbiga kulmiye hadduu xukuumadda haya 8 sano Burco lacagta ma haysateen walaalayaal haddaan idin sheegaya ma ay haysateen maanta lacagta bari hore bedeli lahayd macnaheedu maaha madaxweynaha qaranka Burco ka soo jeeda sida loo yeelaya waa dalka si siman oo cadaalad ah u maamulayna waanu isku wadaynaa dalka ummadda waanu isku wadaynaa lacagta iyada miisaaniyadda sanadka soo socda meel maran baanu dhaxalay bilahan bedeli kari mayno laakiin miisaaniyadda Abriil ka bilaabmaysa first Abriil miisaaniyadda ka bilaabmaysa Burco lacagta waanu ka bedelayna ku abshira ma hal lacagto kaliya waxyaalaha qabanayno waxa kamid ah bari oo dhan in lagu fidiyo lacag sanaag waxa laga isticmaalaa lacag kale oo iyadana boosaaso leeday waxa kale oo kamid ah in maamulka iyo dawladnimada la fidiyo waxa kamid ah sool iyo sanaag bari in la dhaabadeeyo gogol nabadeed baa madaxweynuhu u fidiyay maamulkeeda in la tayeeyo in awood adag lagu taago ammaanka dalkani iyo magaaladan aynu joogna haddii aan xuduudihiisa la adkayn iyo daafihiisa iyo dacaladiisa ma adkaan doono marka walaalayaal waxaan idin leeyahay dul qaata ee rajadoo dhanna yaan la dhigin marka bilaa ugu horeeya yaan la soo dhigin wax badan baynu qabanaynaa iskaashina shacbiga waanu ka sugaynaa dhinaca kale waxyaalaha ay xukuumaddani durba ku dhaqaaqday waxa ka mid ah siyaasaddeeni dibadda wax badan baa iska bedelay waa arkayseen 14 bishan waxaanu ku qabanay caasimadda Somaliland shirkii deeq-bixiyaasha caalamka waa markii ugu horeysay ee Somaliland ay yimaadaan warbaahinta caalamka inta la eg iyo deeq-bixiyaashii dalalka qaaraanka toos u bixiya hay'adaha UN ku way joogaan international NGOs ku way joogaan waxayna la macaamilaya marxaladda sidaynu uga soo gudubnay doorashadii muddakarnimadii aynu muujinay wax qabsiga ummadeena iyo shacbiyahan aynu muujinay isku duubnideenu tijaabo caalami bay noqotay oo loo arkay mudan in la taageero baa loo arkay taasi waxay dhiiri gelisay in lagu soo dhiirado inay dawladdu toos inoo la macaamilaan waa arkaysan dawladda Mareykanku inay lahayd Somaliland toos baan ula macaamilaynaa سلام سعد جامع شبكة وررك يفتي نيوز